wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay roobabkii ka da'ay dalka waxaana uu beeralayda Somaliland ugu baaqay inay ka faa'iideystaan xilli roobaadka sidoo kale wuxuu hay'adaha ka howlgala Somaliland iyagana ugu baaqay in beeralayda Somaliland lagala shaqeeyo sidii wax soo saar fiican ay uga soo saaran lahaayeen beerahooda wasiirku arrimahan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa maadaama aynu ku jirno waqti roobaadka waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kastoo joogaan inay u diyaar garoobaan inay dhulkooda wax kala soo baxaan oo waqtigan hadda iminka uu bilaabmay roob waxaan iyagana u baaqayaa dhammaan hay'adaha qaramada midoobay hay'adaha caalamiga hay'adaha maxalliga iyo dhammaan shacabweynaha reer Somaliland ee qurbaha jooga inay dhammaantood isla garab taagaan sidii aanu dalkan ugu jeexilay ruud in dadku ay la soo baxaan cunno ku filan taasoo aad ogtiin adduunka maanta in wadan kastaba runtii u socdo dhinaca wax soo saarka sidaad mid runtii ka wada dheregsan tihiin adduunyada maanta aynu joognay aynu marayno boqolkiiba 20 ayaa biyaha roobka wax ku beerta beeralayda boqolkiiba 20 ayaa roobka wax ka suga oo u badan wadamada Afrika boqolkiiba 80 ama waa webiyaal ama waa biyaha dhulka laga soo saaro inta badan sidaa darteed inagu waxaanu ka bidnahay dadka inta badan ku munaafacadsada roobka marka waxaanu maadaama aynu roobka ku intifaacsano oo aynu roobka wax ka sugno waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Somaliland mar labaad iyo saddexaadba inaynu ka faa'iideysano dhibicda roobka oo dhibicda roobka ayna dhulka ku dhicin ee aynu ka faa'iideysano sidii aynu wax ugu soo saar lahayn waxaad ogtiin ood marka tihiin in sanadkii dhaweyto aanu awood badan saarnay wax soo saarka 3 mashruuc oo wajaala iyo beer iyo xaaxyo ood weynaa runtii mashaariicdaasi inta badan sidii aanu rabnay uma ay wada suura gelin sababtoo ah waxaanu ku talagalnay roob ay ahayd roobkuna waa wax marna da'aya marna qaadaya laakiin haddana waxaanu ka helnay calaf xoolaad aad u badan calafka xooluhuna wuxuu la mid yahay raashinka dadka sababtoo ah xoolaha waa lafdhabarta aynu ku tiirsannahay boqolkiiba 65 xoolaha aynu ku tiirsannahay iyo beero marka sidaa darteed waxaanu awooddeena isku geynaynaa inuu wadankan aynu noqdo shacabweynaha reer Somaliland dhinaca beeraha in dalka wax kala soo baxaan waxaad ogtihiin sanadkii dhaweed khudaarta dalka ka soo boqolkiiba 70 inay khudaartii wadankan daboolnay boqolkiiba 30 kale ee sanadkan inaanu daboolnaanu rabnaa xagga raashinkana saasoo kale rabnaa wadan kastoo adduunka ka midina wuxuu cunaa wuxuu isagoo la soo baxo sidaa darteed waa inaynu shacabweynaha reer Somaliland inagoo warbaahintiina aad nagala qayb qaadataan inay dadku dalkooda wax kala soo baxaan taasaynu insha Allah horumar ku gaarayna taasaan shacbiga ugu baaqaya isteexada Daawud Yarweyne Kalsan TV Boorama.